Waxaa maanta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gaar ahaan fagaraha loo yaqaano Shimbir Ansha lagu qabtay munaasabad askar ahlusunna wal jamaaca ugu geeriyootay dagaaladii ugu horreeyay oo ay kula wareegaan degmooyinka Dhuusanbareeb iyo Gurceel. Munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxa xukuumadda Galmudug, gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jamaaca iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale. Inta aysan bilaaban xafladda ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug iyo shacabka degmada Gurceel waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee degmadaasi. Sheekh Cabdirashaaq Mir Al-Ashcari oo ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee dagaaladaasi ka soo qayb qaatay ayaa waxa uu si kooban uga sheekeeyay sida uu ku bilowday dagaaladii ay la galeen xarakada Al-Shabaab. Ugu dambeyn, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa saraakiisha sarsare ee maamulka Galmudug ku amray inay xabsiyada ka sii daayaan maxaabiista ku xirxiran xabsiyadaasi, isaga oo sheegay inay ka faa'iideysanayaan fadliga ay leedahay maalintaasi. Dhanka kale, ciidamada ammaanka gaar ahaan ilaalada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa gacanta ku dhigay nin isku qarxin rabay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda lagu xuseeyay shuhadada ahlusunna. Ninkaasi ayaa waxaa la arkay isaga oo xiran jaakad isla mar ahaantaana gacanta ku watay waxyaabaha qarxa sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug. Cabdisataar Xaaji Cali, Baahiya Media, magaalada Muqdisho. Waxaa maanta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gaar ahaan fagaraha loo yaqaano Shimbir Ansha lagu qabtay munaasabad askar ahlusunna wal jamaaca ugu geeriyootay dagaaladii ugu horreeyay oo ay kula wareegaan degmooyinka Dhuusanbareeb iyo Gurceel. Munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxa xukuumadda Galmudug, gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jamaaca iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale. Inta aysan bilaaban xafladda ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug iyo shacabka degmada Gurceel waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee degmadaasi. Sheekh Cabdirashaaq Mir Al-Ashcari oo ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee dagaaladaasi ka soo qayb qaatay ayaa waxa uu si kooban uga sheekeeyay sida uu ku bilowday dagaaladii ay la galeen xarakada Al-Shabaab. Ugu dambeyn, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa saraakiisha sarsare ee maamulka Galmudug ku amray inay xabsiyada ka sii daayaan maxaabiista ku xirxiran xabsiyadaasi, isaga oo sheegay inay ka faa'iideysanayaan fadliga ay leedahay maalintaasi. Dhanka kale, ciidamada ammaanka gaar ahaan ilaalada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa gacanta ku dhigay nin isku qarxin rabay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda lagu xuseeyay shuhadada ahlusunna. Ninkaasi ayaa waxaa la arkay isaga oo xiran jaakad isla mar ahaantaana gacanta ku watay waxyaabaha qarxa sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug. Cabdisataar Xaaji Cali, Baahiya Media, magaalada Muqdisho. Waxaa maanta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gaar ahaan fagaraha loo yaqaano Shimbir Ansha lagu qabtay munaasabad askar ahlusunna wal jamaaca ugu geeriyootay dagaaladii ugu horreeyay oo ay kula wareegaan degmooyinka Dhuusanbareeb iyo Gurceel. Munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxa xukuumadda Galmudug, gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jamaaca iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale. Inta aysan bilaaban xafladda ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug iyo shacabka degmada Gurceel waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee degmadaasi. Sheekh Cabdirashaaq Mir Al-Ashcari oo ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee dagaaladaasi ka soo qayb qaatay ayaa waxa uu si kooban uga sheekeeyay sida uu ku bilowday dagaaladii ay la galeen xarakada Al-Shabaab. Ugu dambeyn, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa saraakiisha sarsare ee maamulka Galmudug ku amray inay xabsiyada ka sii daayaan maxaabiista ku xirxiran xabsiyadaasi, isaga oo sheegay inay ka faa'iideysanayaan fadliga ay leedahay maalintaasi. Dhanka kale, ciidamada ammaanka gaar ahaan ilaalada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa gacanta ku dhigay nin isku qarxin rabay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda lagu xuseeyay shuhadada ahlusunna. Ninkaasi ayaa waxaa la arkay isaga oo xiran jaakad isla mar ahaantaana gacanta ku watay waxyaabaha qarxa sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug. Cabdisataar Xaaji Cali, Baahiya Media, magaalada Muqdisho. Waxaa maanta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gaar ahaan fagaraha loo yaqaano Shimbir Ansha lagu qabtay munaasabad askar ahlusunna wal jamaaca ugu geeriyootay dagaaladii ugu horreeyay oo ay kula wareegaan degmooyinka Dhuusanbareeb iyo Gurceel. Munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxa xukuumadda Galmudug, gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jamaaca iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale. Inta aysan bilaaban xafladda ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug iyo